marka aad rabto noloshaada inaad isbeddel samayso oo aad ka beddesho sida ay hadda tahay waxaa lagama maarmaan ah oo aanay jirin meel aad ka martaa inaad samayso wax ka duwan waxa aad hadda samayso haddii ay tahay guud ahaan noloshaada xilliga aad toosayso waxbarashadaada cibaadadaada shaqadaada iyo habfikirkaaga isbeddelku maaha shay fudud laakiin hadal ahaan wuu fudud yahay inaad isbeddeshaa qorshay kaaga baahan tahay isbeddelku wuxuu kaaga baahan yahay dulqaad samir iyo weliba dadaal joogtaa haddii aad dhammaan arrimaha ka soo baxdo isbeddelkaad rabta wuxuu ku iman doonaa muddo kooban taasoo mar kastaba ku xidhan dadaalka iyo joogtaynta aad la timaado laakiin ugu dambayn hadafkaaga waad gaadhi doontaa waanaad ka midho dhalin doontaa muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 10 qodob oo kaa caawinaya kobcitaankaaga qofnimo. Number 1 ka digtoonow kalsoonida aad siinayso dadka kugu xeeran. Kalsoonidu waa qodob aad u muhiim ah marnaba si fudud cid looma siiyo. Qofku waa inuu kalsoonida kaa kasbado waa inuu gaadhaa heer aad ku kalsoonaan kartid. Kalsoonida ood si fudud u bixisaa waxay kugu keeni kartaa qalbi jab moraal xumo iyo inaad gaadhi weydo hadafkii aad rabtay inaad xaqiijiso. Haddaba si aanay taasi kugu dhicin qofka marka hore xaaladiisa ogow qofkani ma khiyaamoola ma beenaala daacadnimadiisu waa sidee intee in leeg ayaad ku kalsoonaan kartaa xataa haddaad hore isu taqaaneen qofka si fiican isaga hubi oo marnaba si fudud ha u bixin kalsoonidaada baadhitaan dheer kadib markaasaad qofka aamini kartaa qorshayaashaadana aad ku hadlayn kartaa dadka ugu badan ee qalbijabka iyo murugada la kulmaa waa dadka si fudud u aamino dadka kale. Number 2 dantigarad ahow dadka waxba kaama gelin siday kuu arkaan siday u fikirayaan waxay kuu malaynayaan waxay ka aaminsan yihiin waxyaabahaasi oo dhan midna howl adiga kuu taala maaha. Waxaa jira dad badan oo bishii lacag fiican soo gasho laakiin aan lacagtaa waxba dhiganin sababtuna waxay tahay dadka kale dartood. Waxaad alaab qaali u iibsataa waxaad meelo qaali uga soo adeegataa weliba adan waxa u baahnayn sidii aad dadka kale u dareensiin lahayd inaad tahay qof hantiilo ah. Haddaba arrintani waxay sabab u noqotaa in dhaqaalahaagu kobci waayo lacagtii aad noloshaada dambe hantiilo ku noqon lahaydna waxay hadda kaaga baxdaa iska dhaadhicinta dadka kale iyo adiga oo doonaya inay dadku kuu arkaan inaad tahay qof maalqabeena. Waxaad arkaysaa dad aad ka guri qaalisan tahay ka gaadhi qaalisan tahay ka saacad qaalisan tahay marka la isu kiin eego labadiinna adaa qaaliya adigaa hantiilaha u muuqda haddana isagaa kaa lacag badan. farqiga idin dhexeeya wuxuu yahay culayska dareenkani kugu hayo dareenkaasoo ah dadka kale ha kuu arkaan inaad hantiilo tahay qof nolol sare ku nool inaad tahay ayuu meesha ka saaray. taasina waa ta keentay inuu adiga kaa lacag badnaado mustaqbalkiisa dambena uu xornimo dhaqaale gaadho halka biilashii qaar adiga kuu yaalaan islamarkaana ay ku sugayaan inaad bixiso isagu goor hore ayuu wada bixiyey waxna meel dhigtay. marka aad bannaanka joogtaanna adiga ayaa qurux badan adiga ayaa maalqabeenka u eg balse adiga waxaagu isma gaadhaan lacagtu way ku soo gashaa wayna ku dhaaftaa. waxaa labadiinna idinkala duway isaga dadku qorshaha uguma jiraan maba kala jecla inay jiraan iyo in kale halkaad adigu ka fikirayso dadku siday i arki doonaan waana ta keentay meesha aad dhaqaale ahaan taagan tahay. Number 3 iska hubi qofka aad guursanaysid qofka aad nolosha la wadaagaysaa qayb weyn oo noloshaada ka mida weey saameyn ayaanu kugu leeyahay. qofkaasi wuxuu noqon karaa qof caqabad iyo hoos u dhac kugu keena ama wuxuu noqon karaa qof kula jaan qaada oo dhismaha noloshaada ka qayb qaata. dadkuna waa laba midkooduun qof mustaqbal iyo nolol wanaagsan raba iyo qof rabitaankiisa raacaya oo aan laba socon waxa ay noloshiisu ku hagaagayso ee dantiisu ay ku jirto. waana sida ay dadku u badan yihiin waxaa laga yaabaa ninku inuu gabadha ka eego oo keliya dhinaca quruxda iyo muuqaalkeeda guud balse aanu ahmiyad siinin dabeecaddeeda akhlaaqdeeda iyo fahamkeeda nololeed. gabadhuna sidaas si lamid ah waxaa laga yaabaa inay eegto soo dhoweynta hore iyo waxyaabaha ninku samaynayo sida hadallada macaan hadiyadaha iyo koolkoolinta faraha badan ee ninku samaynayo. hadhow markii la isguursado ee guri la wada dego ayay dabeecadda iyo dhaqanka saxda ah ee qof waliba soo baxaa markaasay noqdaan laba qof oo isku cusub oo aan horeba isu aqoon isma fahmayaan maba aha dadkii soo sheekaystay ee wax walba soo dhammaystay waayo qof waliba wixii uu ku tashanayay ayaa meesha ka baxay. laakiin markay xaqiiqadu timid awood wax lagu xalliyo oo lagu wada joogo noloshana lagu sii wado midna ma laha. arrintaana waxa keenaya inaan marka hore xaqiiqada laga wada hadlin noloshana aan runta laga sheegin.
Nambar 4 qarsan noloshaada ayna dadka kale ogeyn adigu ha ogeysiinin oo ha uga sheekaynin noloshaada qaybaha dadka kale ka qarsoon sida qorshayaashaada farxadaada hantidaada iyo haddii dhibaato ku haysato sababtoo ah dadku kugulama wada farxayaan wanaagga aad haysato iyo halka aad rabto inaad gaadho dhibtaadana waxaa dhici karta inay dadka qaar ku farxaan sidaa darteed noloshaadu sir ha kuu ahaato wixii guud ee muuqda marka laga reebo Nambar 5 qiimahaaga garo qiimahaagu wuxuu ku xidhan yahay aqoontaada dabeecadaada akhlaaqdaada xirfadaada howlkarnimadaada go'aankaaga qaab fikirkaaga iyo hal abuurkaaga intaa markaad naftaada ka dhisto ayaa qiimahaaga qofnimona kor u kacaya Nambar 6 dareenkaaga u tali haddii kale isaga ayaa kuu talin doona dad badani waxay nolosha ugu fashilmaan oo ay horumar u gaari waayaan oo guuldarrada ula kulmayaan dareenkooda ayaa u taliya oo hoggaanka u haya taasaana niyad jabka iyo horumar la'aanta ugu wacan intaad dareenkaaga daba socotana noloshaada guul gaari maysid fursadaha noloshuna way ku wada dhaafayaan haddaba dareenkaagu hadda kadib yaanu kuu talin ee adigu aad u talisaa oo aad adigu naftaada hoggaamisaa sababtoo ah marnaba horumar gaari maysid ee waad ku habsaamaysaa uun dareenku sidiisaba waa marmarsiyo ay naftu ku samaynayso waxay ku leedahay waa daalan tahay hadhow ayaad qaban doontaa sanadka dambe aad bilaabi doontaa bisha dambe ayaad bilaabi doontaa haddii aanad marmarsiiyaha si degdega uga hortagin dareenkaaga ayaa kaa awood badan doona haddii aad rabto noloshaada inaad guulo waaweyn gaadhid noloshaadana farxad ku noolaatid dareenkaaga khilaaf waa kugu ceeb dareenka yar ee maskaxdaada ka baxaya dartiis inay kuu dhaafaan fursado badan oo aad horumar ku gaadhi lahayd Nambar 7 nasashada badan jooji adduunyadu sideedaba maaha meel lagu nasto waa meel loogu talagalay shaqo daal iyo rafaad ama aakhira u shaqayso ama adduunyo u shaqayso labaduba dadaal iyo waxqabad ayay kaaga baahan yihiin markaa jooji nasashada iyo raaxada badan ee aad raadinaysid sababtoo ah shay kasta oo raaxo lihi wuxuu kaaga baahan yahay dadaal iyo shaqo fara badan intaa adoon soo marinna raaxo iyo nasasho gaadhi maysid haddaba ha nasan inta aad da'yar tahay ee aad awoodda leedahay si aad u nasato maalin aanad awood badan lahayn islamarkaana aad u baahan tahay inaad nasato haddii kale isweydaar ayaa kugu dhacaya oo waxaad noqonaysaa qof maalintuu awoodda lahaa nastay oo raaxo helay maalintuu bilaa awoodda noqday ee u baahnaa inuu nastana shaqo bilaabay balse aan lahayn awooddii uu ku qaban lahaa taasina waxay kugu keeni doontaa inaad ka murugooto wakhtigii ku dhaafay midda kale raaxo maaha raaxo iyo nasasho daal iyo tacab ka dambeeya haddaba maanta ka faa'iidayso awooddaada iyo wakhtigaaga Nambar 8 ha ku daalin qancinta dadka kale waqtina ha iskaga luminin inaad dadka qanciso qofkii qancaya wuu qanci qofkii kalena qanci maayo intaad doontaba aad la hadashid sidaa doontana aad wax ugu sharaxdide muhiimaddu waa inaad adigu daacad tahay haddaad wax sheegayso iyo haddaad wax qabanaysaba hana isku dayin inaad dadka wada qanciso waayo waa wax horeba loo gaadhi waayey mana awoodid inaad dadka wada qanciso oo mar walba waxaad arkaysaa dadka qayb ka mid a oo aan kugu qancin Nambar 9 salaadaada wakhtigeeda ku ilaali qodobkani waa qodobka ugu muhiimsan isla markaana kuu suurto gelinaya dhammaan qodobadii aynu ka soo sheekaynay waana halka ay dhibaatada iyo mashaakilku kaa haystaan waxaad rabtaa inay wax waliba kuu hagaagaan waxaad rabtaa inay noloshaadu fiicnaato waxaad rabtaa in ilaahay baryadaada aqbalo waxaad rabtaa inuu ilaahay u soo degdego gargaarkaaga haddaba si ay taasi u suuro gasho waa inaad ilaalisaa xidhiidhka adiga iyo ilaahay idiin dhexeeya oo ay salaadu ugu horrayso Nambar 10 ducada badi waa inaad lahaataa wakhti gaara oo aad ilaahay barido oo aad baahidaada u sheegto weliba ducada waa inaad ku celcelisaa oo aanad ka daalin hana degdegin oo hays odhanin kuwii horeba lagaama aqbalin waayo ducada marnaba laguma qasaaro waxayna culimmadu u qaybiyeen ducada 3 qaybood oo kala ah Nambar 1 in lagu siiyo wixii aad ilaahay ka baryaysay ee aad ilaahay weydiisatay in ilaahay ku siiyo hadday dhibaato ahaydna in ilaahay dhibtii kaa dulqaado Nambar 2 in ducadaadii lagaaga difaaco ama lagaaga leexiyo dhibaato kugu soo wajahnayd iyo caqabado kugu soo socday in ilaahay markaa kaaga leexiyo Nambar 3 in ilaahay agtiisa lagugu kaydiyo oo dabeetana hadhow toona lagugu abaalmariyo xilli aad u baahan tahay saddexdaa qaybood ayay culimmadu ducada u qaybiyaan sidaa awgeed ducada marnaba laguma qasaaro
waxyaabaha ducada lagu aqbalana waxaa ka mid ah inuu qofku yahay qof xalaasha cuna oo iska ilaaliya waxyaabaha xaaraanta nooc kasta oo ay xaaraantu tahayba. haddaba waa inaad ka toobad keentaa waxalla wixii xaaraana, ama inuunaad isleedahay waxaasi xaaraan bay haayeen, ama aad ka shakisan tahay xalaalnimadiisa si ducadaada lagaaga aqbalo. wixii dambe ee xaaraanana waa inaad iska joojisaa ood faraha ka laabataa. ilaahay khayrka hayna waafajiyo, mid adduun iyo mid aakhiraba. aad ayaanad u mahadsan tihiin. muuqaalkana like saara, channelkana subscribe saara.